Kulliyadda caafimaadku waa xarun waxbarasho sare oo lagu barto culuumta caafimaadka ee la xiriira daweynta iyo daryeelka bukaanka. Ardayda dhigata kulliyaddanna waxay bartaan xirfado kala duwan oo la xiriira caafimaadka, daawada, iyo cilmiga la xiriira jirka iyo cudurrada. Maxaase lagu bartaa kulliyaddan caafimaadka? Waa su'aal uu qof walba oo doonaya inuu ku soo biiro kulliyaddan isweydiinayo. Waxaana loo kala qaybin doonaa cilmiga aasaasiga ah ee caafimaadka, barashada cudurrada iyo daaweyntooda, iyo weliba xirfadaha la xiriira kulliyadda tan. Waynu isla arki doonnaa haddaynu isla eegno cilmiga aasaasiga ah ee caafimaadka ee aad baran doonto waxaa ka mid ah anatomy oo lagu baran doono barashada qaab-dhismeedka jirka, physiology oo iyadana lagu baran doono barashada sida uu jirka u shaqeeyo. Waxaa kaloo jiri doona maaddo kale oo la yidhaahdo biochemistry oo iyadana lagu baran doono barashada kiimikada jirka. Sidoo kale waxaa jiri doona maaddo la yidhaahdo pathology oo iyadana lagu baran doono barashada cudurrada iyo sababahooda. Waxaa kaloo jiri doona microbiology oo iyadana lagu baran doono barashada jeermisyada iyo cudurrada ay keenaan. Barashada cudurrada iyo daaweyntooda. Sidoo kale waxaad ku baran doontaa maadooyinka ay ka midka yihiin pharmacology oo aad ku baran doonto barashada daawooyinka iyo sida ay u shaqeeyaan. Internal medicine maaddo la yidhaahdo ayaa iyaduna jira oo ka mid ah barashada cudurrada iyo daaweyntooda. Waxaana lagu baran doonaa barashada cudurrada gudaha sida wadnaha, kelyaha iyo sanbabada. Badanaa maaddadan waxaa lagu bartaa cudurrada ku dhaca gudaha baadhiga. Surgery maaddo la yidhaahdo ayaa iyaduna jiri doonta oo lagu baran doono barashada qalliimada iyo daaweynta bukaanada u baahan in loo fidiyo qalliin. Sidoo kale waxaa jiri doona maaddo la yidhaahdo gynecology oo lagu baran doono barashada caafimaadka dumarka iyo dhalmada. Pediatrics maaddo la yidhaahdo ayaa iyaduna jiri doonta oo lagu baran doono barashada caafimaadka carruurta. Xirfadaha la xiriira caafimaadka waxaa ka mid ah clinical skills oo lagu baran doono sida bukaanka loola hadlo, baaritaan lagu sameeyo, iyo xallinta xaaladaha caafimaad. Waxaa kaloo jiri doona first aid and emergency medicine oo lagu baran doono sida xaaladaha degdega ah loo maareeyo. Radiology ayaa iyaduna ka mid ah waxyaabaha la xiriira ama ka mid ah xirfadaha la xiriira caafimaadka. Waxaana lagu baran doonaa barashada sawirrada caafimaadka sida X-ray, CT scan, iyo MRI. Community medicine ayaa ka mid ah skillska la xiriira barashada caafimaadka. Waxaana iyaduna badanka ay ku taxalluqdaa caafimaadka bulshada iyo ka hortagga cudurrada. Kulliyaddan caafimaadku waxay socotaa dhowr sano oo inta badan u dhaxaysa 5 ilaa 7 sano, iyadoo ardaydu marka ay dhammeeyaan ay noqdaan dhakhaatiir, kalkaaliyayaal, iyo farmashiistayaal, iyo weliba cilmi baarayaal ku takhasusay arrimaha la xiriira caafimaadka.